daawadayaal halkan aan taaganahay waa xaafadda daami oo ka tirsan degmada Gacalibaax ee magaalada Hargeysa. Bulshada halkan ay ku dhaqan sanado badan ayaa waxaa lagula dhaqmeeyay takoor iyo faquuq laga hayay. Haddaba 30 sano ee ugu dambeeyay Soomaaliland jirto maxaa iska bedelay faquuqii iyo takoorkii lagu hayay bulshadani? Waa barnaamijkeenan ayaan ku eegi doonaa. inkastoo ay bulshada Soomaalidu ay kala abtirsadaan haddana waa bulsho iskaga mid ah inay faquuqaan oo ay haybsoocaan bulsho Soomaaliya oo ku dhex nool waana takoor ay ku dhaqmayeen sanado badan taasoo jiilba jiilka ka dambeeyay ay sii jiraysay. haddaba sanadkan la joogo iyadoo ay korodhay bulshada wax baratay maadi ahaan iyo diin ahaanba bal waxaynu ku eegaynaa barnaamijkeenan waxa iska bedelay takoorka lagu hayay bulshada ka soo jeeda beesha Gabooye. Suldaan Daakir Xasan Khaliif waxa uu ka mid yahay salaadiinta ka soo jeeda beelaha Gabooye waxa uu faahfaahinayaa bulshada uu ka soo jeedo in xagga dhaqanka wax iska bedeleen iyo inaanay waxba iska bedelin qaabkii loola dhaqmi jiray. dhibaatooyinkan bulshadan aan ka soo jeedino kow iyo laba lama oran karayo. waa bulsho xagga dhaqaale ka curyaantay oo xagga siyaasadda ka curyaantay oo xagga waxbarashada ka curyaantay oo xagga Allah musta'aan caafimaad ka curyaantay oo xagga deegaanka ka curyaantay waxaasoo dhan dib u dhac ay ku jiraan. sababaha ugu weyna ay tahay takoorka iyo haybsooca iyo isirsooca ku yimid. waayo waa dareemi karaysaa dadka ilbaxay runtii de ma garanaysayay waxaan dareemay marka laga yimaado waxaa jirta bulsho badan oo ka soo jeedno aan dareemin oo ciyaar iskuulkeeda markay iskuulka tagayaan markay mancaamada tagayaan markay wax baranayaan markay magaranaysa ganacsi markay meel galayaan la oranayo war waxaan midgaanka muxuuha oo loogu qoriyo samuradda oo macalinka dhigaya dugsiyada qaarkood uu tusaale u soo qaato oo kow aan laba aan ahayn oo waxaasoo dhan ay ku keenayaan ardaygii inuu morality yara magaranaysa jabo. waxaan garanayaa nin ka mid ah macallimiinta jaamacadaha wax ka dhiga inuu tusaale u soo qaatay bulshadan aan ka soo jeedino isagoo tilmaamaya ama ka hadlaya ma garanaysaayay carab ka hadlaya oo ay fahmi waayeen oo tusaale ahaan u soo qaatay bulshadan aan ka soo jeedino inay mithaalka ay yihiin ka adoonka kale ay yihiin oo ay ma garanaysaa u soo qaatay tusaale. way jirtaa in ardaydii waxbarashadooda iyo himigooda dee nin adag mooyaane oo ilaahay subxaanahu waafaje mooyaane inay dhammaan baraq jabaan oo hanku jabo inkastoo imika sidii hore aanay ahayn laakiin dadkii waayigii isticmaalka ama intii ka dambeysay ee magaranaysaay dowladdii dee dhibka badnayd ee ummadda dhibaatada fara badan u geysatay ee Soomaaliya ka jirtay ayada lafteeda qabyaaladii quran waa ka jireen laakiin se way kala tufsanay xagga qabyaaladda oo dad badan ba wax ka baranay wax ka bartay laakiin dadka hadda jooga intan iminka waxaan oran karaa wixii 2000 ka dambeeyay ama 2010 ba soo gaar ama 2000 wixii ka dambeeyay iminka intan ka soo gaaray ayaad moodaa dadku in isbedel yara dareemeen laakiin intii anagoon soo gaadhnay ama wax la soo baranay masaajidada aanu ka adimayno ama aan joogno ama imaanka ama aan joogno ama ka tala ama aan ku jirno ayaa samuurada lagu qorayay inay yihiin dad midga ah. kadibna qofka bila aadmiga ah ayadoo magaca aanu ahayn magac xun oo magacu yahay magac iska fiican marka si loo fasiro ayaa waxay keenaysaa taasu in bulshada anagu aan ka soo jeednaa hankooda uu hoos u dhaco. isbedel waa jiraa imika waxaan oran karaa xagga waxbarashada waa ka jiraa maasha Allah weeye waa soo kaceen dadkii morality-na rag baa jira maanta ay ku daydaan oo runtii ama ha noqdaan dhaqan ha noqdaan ama ha noqdaan siyaasiyiin ha noqdaan ama ha noqdaan aqoon-yahan ha noqdaan dad baa jira maanta lagu dayan karo la oran karo ma garanaysaa dad baa inoo soo baxay la oran karo oo hadli karaya oo wax iska celin karaya oo suuqa mari karaya. hadda waxaan oran karaa jaanibkii dhaqaalaha iyo deegaanka iyo isdhexgalkii intaas ayaa ka maqan laakiin wixii kale alxamdulillah waa fiican waa wanaagsan.
bulshooyinkan ka soo jeednaa deegaan ma laha rasmi ah si ay bulshooyin kale deegaan u leeyihiin imiga Hargeysa waa degnaa xaafadda daamiyan ka degnaa iyo hawlwadaag iyo kilalka meelahaas ka degnaa laakiin deegaanada ku haraareysan ka baxsan magaalada Hargeysa ama degmada Hargeysa ka baxsan ma degnaano ku reerahan ma degno magaalo kastana caynkaas ka yihiin hadda moodaa inay meelaha qaar kood sida daar nawaaxiga Dar es Salaam meel la yiraahdo Galoole iyo meesha cergaabo gaalkacay cergaabo aan ka dhisnay iyadana xafad la yiraahdo degmo la yiraahdo cerluluciyo hadday soo baxayaan laakiin deegaan ay reer ku leeyihiin oo rasmi deegaan ma jiro taasi waxyaalaha waxay keentay in ummadan cududeedii iyo Allahumma musta'an dhaqaalaheedii iyo maskaxdeedii intaba ay isku nusqaamaan waa ummad maga isku tashato ay isku timaado waxa laga yaabaa inay noqoto ummad moral ahaan dhisan inay noqoto ummad iskaashata ummad dhaqaale ahaan iskaashata cududaha iskaashata wax qabsato wax dhisata laga yaaba noqoto ummadda hadday axdaa wax tarayaan ama hay'ad ha u yimaadaan ama ummad kale ha u timaadaan markay uruseen waxba la tari karaa ayuu wax bay qabsan karaa Abwaan Yuusuf Cabdilla Shaacir oo ka mid ah abwaanada sida weyn looga yaqaano deegaanada Soomaalida waxa uu caan ku yahay sameynta suugaanta isagoona suugaan ka tiriyay qoqobka lagu hayo bulshada Gabooye meel kasta ay kaga nool yihiin deegaanada Soomaalida qadiyadan qoqobka bulshada ama waxaan imika loogu yeero waxyaabahan loogu yeero haybsooca waxaan oran karaa waa qadiyad laga seexday labada dhinacba dhinaca wax tirsanaya iyo dhinaca laga tirsanayaba waa qadiyad hore looga seexday laakiin imika muddooyinka dambe isbedel baa muuqda iyo dhaqdhaqaaq xooggan oo arrinta ku wajahan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inaga dulqaado oo bulshadu ay mid qura noqoto marka suugaantii aan ka tiriyay ayaan tuduc ka soo qaadanaya isbedelka anigoo ka hadlaya waxaan aayihiina dambeetiyo ubax baan arkayaa abshir baan filayaa abaanduulo hormuud iyo akhyaar baan maqlayaa abaalkii ka maqnaayo rag wixii la ilduufay aabiyo uu garanayo ordayaaban aqaan haween eelka ku raagiya adyaday la kulmeen iyo umalkii qarsanayo ayaantooda sugayo samrayaaban ogaa abaalkiinu ma awdna ayaankiinu ma laala aarankiina ka caaya amintoodu ma dheera afgobaadsina maxa markuu aarsan karaayo alla ruuxa xasuusta ajarkii lama koobin allahiina uumiya aakhirayna sugaysee ayaanteeda xasuusta oo nuxurkaygu yahay waa ka baxaysaan mashkiladan laakiin idinkuna sida yadii ha talax tagina oo ha xadgudbina marka ilaahay idinka dulqaado mashaakilaadkan waayo inaa ka baxaysaan ilaahay baa quraanka inoogu sheegay wa tilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas dunidu waa maalmo isdaba socda maalin baa cid baale marka maalintiinu way imanaysaa haddaba waxaan weydiiyey waxyaabaha sababay inuu suugaan ka tariyo xuquuqa lagu hayo bulshadaasi waxay u kalifay abwaanku ama suugaanyahanku waa afhayeenka bulshada had iyo jeer waxyaabaha bulshada ka dhexdhaca ayaan anagu ka turjunaa oo bulshada dib u soo celinaa marka qabyaalada ka mida tan iminka aynu ka hadlaynaa ka mida waxyaabaha kale ee ama xagga siyaasadda ama xagga waxyaabahaas oo dhan aanu ka hadalnaa marka waxyaabahii aanu ka hadlaynay kuwii ugu cuslaa ayay ka mid tahay tani saasaa kaliftay inaanu ka gabayno oo ummadda u soo gudbino waxyaabaha dhexdooda ka dhacaya ama say isu riixayaan jaamac Ismaaciil Cige waxa uu ka mid yahay ragga ku xoogsada muruqiisa ama waa muruqmaal hadba sidaad u taqaano haddaba waxa uu ka sheekeynaya caqabadaha uu kala kulmay bulshada uu ku dhex nool yahay iyo sidoo kale xukuumadihii kala dambeeyay ee soo maray Somaliland dhibaato badan baanu kala kulannay bahashan farsamada iyadoo ugu horeysa haybsoc midab kala soc cunsuriyad guri xaggaasana loo dhisay berigii dawladdiina cigaan xoog baana naga qaado ma geedaan baa lagu yidhi gidaarkaasaanu ka fadhinaa gidaarkaa ayaanu ka fadhinaa maxkamadaga waanu tagnaa inaad tii u hoosaysay inaad tii u saraysay waa naloo soo xukumay fulintii baa lagu yidhi midka waxba nooma fuliyo 8 sannadood baan dacwoonaynoon maxkamadoo dhan tagay tii walba way noo soo xukuntay lahaanshay noo soo xukuntay yaa haddana fulintii markay soo baxdayba wax loo fuliyay lagu wasiir kasta waanu tagnay intaasoo sannadood baas girgiraa nagu hadhay girgirihiina farsamadiina dibadda laga keena bartiis waana naga dhoofiyey dad abaaraa haya annagana macluul baana haysa waxa lee wax noog ilaahay mooyna bilaad ma jiro waxa lee wax mucaawimo yimaada qabiil baa wax lagu bixiyaa annaga cid waxba nama siiso xafiiska haddaanu tagno cid waxba nooma qabato nooma dacwadeedaba cidi ma eegto ilaa culimmadaanu tagnay aani baan dulmigan eega
waxaan wax noo qabanaya ma jiro farsamadii wataa sidaasaan u fadhinaa wax walba dibadda laga keen girgira hadho girgirihiina dibadda laga keen kabihiina hadalkooda badaa ra'iiskiina waaba nagu haysano iyagaa wada dhigteen karaysadii oo dhan kaasa niman xabashiya loo dhiiba waxay ka xargo jireen xashiishkii ijooye u samaysteen anagana bariga hore jaarwanayaal baan loo oran imikana iyagu ijooye u samaysteen bar bannaan baan taaganahay bar bannaan yaan taagan qabqabtaasaan haystaa wax walba imika sidaasaan u dul fadhinaan u fadhina mudaca ugu yaro dibadda laga keenay mudaca ayaa ugu yaro dibadda laga keenay girgira waddanka ugu hadho girgiriina dibadda laga keenay maanta shaqo dhaantay lagu siiyo tan ma iska dhin maxaa hawadeedaba maan galaan iyaa ku siinayaba wax walba waa la isku koobo dad bay u xidhantay mucaawimooyinka hay-aduhu bixiyaana islaamiga yaa reer hebel lagu bixiya iminkana waxaaba la samaystay barakac miidhan annaga hadday waddan nagu dhacdo baroodhkiina ingiriiskii yaan isdul fadhinaa sidii koronkoradii yaan isdul saarnan inankiisa isku ku dhalay kuu sii dhalay wadda hadday nagu dhacdana aniga dibdejinta noolama sameeyo dhulkana noomaba sinnaba xukuumadda waxaan u dirayaa alla yaqaan rasuul yaqaan aakhira yaqaan marka hore inaa wasiir laga dhigo oo xilka nin ilaahay yaqaano nebiga yaqaano rasuulka yaqaano aakhira yaqaana inuu marka hore xilka qabto ilaa agaasimaynaa wasiir kaan u tagnaaba markuu sidaa wax waraaqahayaga waagoon buu xagaa ku tuuraa jaamac markan waxa uu isku dayayaa in uu dareenka uu qabo nagu dareensiiyo hees nagar qabe waxaa jira aan isdhaafinayno miska dhigaanayaa jira warqadaha dhambaalka dhan kastaba ka soo dhaca nagar qabe waxaa jira aan isdhaafinayno miska dhigaanayaa jira boqor axmed iimaan warsame boqorka beelaha gabooye waxa uu isna ka warbixinayaa 30 sano ee Soomaaliland jirtay waxa iska bedelay dhanka siyaasadda beelaha uu ka soo jeedo intaasoo dhibaato aan ku soo marnay haddana maanta alxamdulillaah waaniga damaada TV-ga ka hadlaya waaniga dhalisheeda sheeganaya shalay dhaliil ma sheegan jirin cid man cambaareen jirin waxbana laga maqan maanan oran jirin oo maanta bad xorriyad baan haysan alxamdulillaah isbedel weyn baa yimid inkastoo isbedelku halkii loo baahnaa una gaadhin waxa jira imika cudurkan COVID-19 adduunka oo dhan talaal buu doonaa intaas 30 sano anigu bal talaal baanu doonaynay cusriyadan iyo dhibaatadan iyo waxaanu kaga bixi lahayn inaan iska talaalno imika coronaviruskan China markuu adduun weynihii oo dhan u qabsaday ayaa cudurkan ay dawladihii Yurub iyo Mareykanka isku tageen ay yiraahdeen aan virus ku sameeyno isaguna uu ka maandeer wahayo ka maskax badnaayo kii uu soo casriyeeyo dib ugu celiyay imika loo taaglayahay marka anagu markaan adduunka farsamadaayada ay ka yaabeen Soomaali maskaxdaayada ay ka yaabeen mindisnimadayda ay ka yaabeen iyo viruskan ugu soo tuureen ilaa midgiyaan virus kelmadda midgaan virus baa lagu adeegsanay dadka lagaga eriyay wala ka soo midgaan wala lama cuno waa sida imika China wuxuu cunaa bahalka masasku cunaa China wuxuu cunaa dadka wada media la soo dhigdhigi jiray si adduunka looga jaro China marka dhibtan annaka meendisnimadayadii ayaa waxana loogu sameeyay baribe baqti cuneen nimba baqti cunay nimba saasabay wax xarfadan ka ayaa loogu sameeyay viruskan lagu soo tuuray marka adeer waxay ahayd 200 sanadood viruskan imika loo adkeysan lahayd waa sanad adduunka oo dhan ka qaylayo 200 sanadood bay nagu hayeen midgaan virus midgaan sidaas oo hadana nooleen oo dhimo weynay oo hawshaayada wadanay oo wax walba ay nagu sameeyeen waxaan qabateen nagu sameeyeen wax walba meel walba ay Soomaaliyeed naga timid waxa soo dhan hadana kartida ayada ya awoodda Ilaahay oo moogtay na gargaariyo oo ka baxsanay dhaqameedkan jooge Soomaaliyeed ama Soomaaliland waxay doonaan noqdaan cusriyadanu ku qabnaa deena kan ka yeeleen cusriyad maanta waxaan qabnaa inuu wada simanahay isageen reerkiisu soo doorteen
annaguna reerka ayaga aanu doonanay weliba annagu aanu dheernahay bulshada caalamka oo dhan oo na aqoonsan oo na og oo tiraahdo waa dad noocaasa oon anagu xagga uga karaamo badan nahay oo dadweynaha meel walba nalagu qaabilo iminka 3 jeer baa aniga shirarka adduunka layga soo dalbado ka qayb galay 3 times soo ma garan oo United Nations fadhiistay dee ma garanayo nin madax dhaqameedoo intuu United Nations tegey gaalada ay tiri boqorka see loo salaamaa qaar baa weydiiyey kuwii la socdo yiri doonay inay salaamaan markaa boqorka see loo salaamaa markaa buu yiri waa la gurguurtaa markaa anaga boqorkaaga salaamaysaa soo gurguurta dee kalsoonida aan qabno jaamacadii baa wax ka dhignaa alxamdulilah wax weyn baa iska bedelay taasna fursadda waxna siiyey dhalinyarada maanta reer Somaliland oo nagu mahad celinino in iyagu waana ku wax bedelay cusriyadan 5 sano soo socdana insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in waxna baabi'i doonaan laakiin xagga xukuumadda ayaad moodaa waliina ka sii jirto cusriyadii laana ummadan oo aan wali la siinayn wasiir loo quudeen gudoomiye degmo aan loo quudeen gudoomiye komishin aan loo quudeen barisaaba loo quudeen maxkamadaha iyo garsoorka aan loo quudeen in garsoora ay noqdaan waxay taas ku xidhantahay waa xukuumadda ee xukuumaddana maadaama bulshadeen maanta gacan ka haysano iyaduna isbeddel ku iman doonaa waxaan rajaynaynaa inaanu sanadada soo socda insha Allah madaxweyne isku sharaxi doono Chief Caaqil Rashiid Maxamed Jaambir oo kamid ah madax dhaqameedka sida weyn looga yaqaano Somaliland waxa uu sheegay inaanay waxba iska bedelin hadday tahay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan laakiin bulshadaasi iyagu ay sameeyeen isbeddel la taaban karo beelaha gabooye waxa ku habsatay masiibo bini'aadanimo oo aan is oran karo bini'aadamka wax yar bay soo martay dunida korkeeda Allah abuuray ku uuman qaab aan ilaahay xaqiisa ku wanaagsanayn shareecada islaamku aanay ogolayn dhaqanka suuban ee wanaagsan ee diinteenu faraysa aanay ku wacnayn ayaa beelaha gabooye ama beelaha imika aad tilmaantay dadka khaasatan Soomaalidu ay kula dhaqmi jireen haddaan u soo noqdo su'aasha ah muddadii u dambeysay ama taariikhda sidaynu ku hayno ama intii taariikhda aynu soo marnay intii aynu sugo gaadhnay beelaha gabooye qaabkii loola dhaqmi jiray iyo sidii loola macaamili jiray iyo sidii loola xidhiidhi jiray iyo maanta oo aynu joogno waxba anigu 30 sanadood ee Somaliland jirtay eegi maayo tiro yaroo kooban oo aad u kooban bay ka noqonaysaa waqtiga dheer ee beelahani ay dhib ka qabeen wax ma iska bedeleen anigu raygayga waxaan isleeyahay ama aan qabaa wax la taaban karo oo macna leh oo iska bedelay ma garanayo wax la taaban karo oo macna leh oo iska bedelay qaabkii iyo dhaqankii foosha xumaa ee argagaxa lahaa ee loola dhaqmi jiray beelaha Soomaalida ah ee islaamka ah ee waxaynu ku kala duwannahay iyo waxaynu isdheernahay midna aanay jirin loola dhaqmi jiray waqtiyo fara badan iyo ilaa maanta oo aynu joogno saacadan aan kula hadlayo qaabka loola dhaqmo waxaan isleeyahay wax la taaban karo ama wax iska bedelayba ma jiraan waayo markaad eegto dhinacyada dhaqaalaha haddaad eegto siyaasadda haddaad waxyaabo fara badan haddaad aragto waxaad dareemaysaa inaan wax la taaban karo oo iska bedelay aanay jirin waa qaabkii ay dadku ula dhaqmayeen laakiin iyaga marka la eego ayaa kuu muuqanaysaa inay wax iska bedeleen waxa soo baxay dad han leh oo salaadiin leh oo siyaasiyiin leh oo ganacsato leh oo u fekeraya inay gartay inay dadka wax ay dheer yihiin aanay jirin ay la mid yihiin oo u tafaxaytay oo u guntaday dadkoodii inay baraarujiyaan oo ay wacyi geliyaan
oo u sheegaan in ay dadka Soomaalida ama Islaamka ah ama aadamiga ah ee ay ka midka yihiin waxay dheer yihiin aanay jirin ay la mid yihiin oo hankoodii ay kor u qaadaan aad iyo aad baan kuwa ugu mahad celinayaa oo iminka aan waa dad fara badan oo haddaan iminka hebel iyo hebel idhaa oo siyaasiyiin iyo hoggaan dhaqameed bay isugu jiraan oo haddaan hebel iyo hebel idhaa dad fara badan noqonaya aad bay ugu mahadsan yihiin laakiin haddii aan su-aashaada u soo noqdo wax buuran oo muuqda oo la taaban karo oo iska bedelay oo aniga iminka aan idhaa kaayo kaasiba way dhaceen ma jirto haddii dadka tiradiisa la eegana gobol iyo tuulo iyo degmo aanay dadkaasi joogin oonay qayb muhiima oo laxaadle oo muuqata ka ahayn ma garanayo waxaa intaa dheer dadkaasi inay yihiin dad ilbaxa beelaha gabooye waxaan anigu u aqaanaa dad ilbaxa haddii ilbaxnimo la sheego waa dadkii ugu horreeyey ee ilbaxa dunidu waxay ku horumartaa oo ay meel ku gaadhaa inay caqliga iyo maskaxda iyo fikirka ka shaqaysiiso inay wax abuurto inay hal abuur la timaado inay hal abuur keento waa dadkii keenay dadku inay noolaadaan oo ay waxay ku noolaan lahaayeen samaystaan oy ka mid tahay malqaacaddii oy ka mid tahay mididii oy ka mid tahay maxaarkii oy ka mid tahay kabtii oy ka mid tahay gaashaankii oy ka mid tahay warankii oo yacni qaybo fara badan anfaciina loo adeegsado difaaciina loo adeegsado haddii ay dhaqaale iyo wixii ku dhacay ee ummaddan loo geystay aanay gaadhinna waxaan isleeyahay waxay ina gaadhsiin lahaayeen tiknolojiyada casriga ee maanta dunidu ay ku faantay ee qaarkeed dayaxa dushiisa gaadhay ayay farsamadoodu ina gaadhsiin lahayd haddii la fahmo oo la gacan qabto oo hore loo mariyo oo aan la xaqirin oo aan la yesin oo aan la ihaanadaysan waxaan isleeyahay cilmigoodii iyo caqligoodii ay keeneen iyo ilbaxnimadoodii waxaa ku gaari lahayd maasle dayaxaa ku gaari lahayd waxaan u soo jeedin lahaa dadka aan beelaha ahayn in dadka xaqoodii ilaahay la siiyo in ilaahay loogu dhowaado in wixii jaahilnimada ahaa ee foosha xumaa ee qallabsanaa ee lagula kacay ama lagu sameeyey in laga toobad keeno oo la bedelo maamulada iyo institutionada jira ee aanay qaybba ka ahayn waxaan leeyahay war qayb ha ka noqdaan oo qaybtay ka noqonayaan ha noqoto in meelaha muhiimka ah in loo sheego inay dadka ka mid yihiin oo la hogaamin karo waxna ay hogaamin karaan oo xilalka dawladda kuwa ugu muuqda iyo mas-uuliyadaha kuwa ugu muuqa dheer ee bini aadamku ay ku muuqan karaan in loo quuro oo loo haneeyo oo loo dhiibo dadka Somaliland intaasaan odhan lahaa xukuumad iyo shacbiba beelaha gabooyana waxaan odhan lahaa hankiinu ha sarreeyo bini aadamka weelkaad ilaahay wuxuu wax kugu shubaa weelkaad wax ku weydiisato wixii xumaa ee laydinkula kacay ee gafka ahaa qalbigiina yay gelin ha u qaadanina dadka inaad ka hoosaysaan hadday ilbaxnimo iyo tahay saan hore u soo sheegay dadka waad ka horeysaan dadkoon ilbax ahayn baa dadku inay noolaadaan ilbaxnimo gaadhsiiseen oo waxay ku noolaan lahayn idinkuu samayseen hankiina hoos u dhigina is-ixtiraama isqadariya is-xurmeeya isku tiirsanaada isku duubnaada dadkaa la mid tihiine cilmiga iyo ganacsiga iyo dowladnimada iyo wax kasta oo mujtamaca aad la wadaagtaan qaybtiina ka qaata sanad kasta Somaliland waxaa ka soo baxa dhalinyaro waxbaratay kuwaasoo raadsada goobo ay ka shaqeeyaan iyadoo ay barbar socoto shaqo la'aanta ay ka cawdaan dhalinyarto ee wax ka soo baratay jaamacadaha dalka haddaba xukuumadda talada haysa ee Somaliland sidee bay u shaqaaleysiiyaan dhalinyarta waxbaratay ee ka soo jeeda beeshaasi waa kan Farxaan Aadan Heybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo ay hoos tagaan dhammaan shaqaalaha dawladdu waxaan uu sheegay qaabka ay dawladdu u shaqaaleysiiso bulshadaasi anagu sharcigan ku shaqeyno 0796 iyo sharcigan dambe imika baarlamaanka maray
dee hayb gaara iyo cid gaara iyo koox gaara midna gaar u tilmaami maayo wuxuu leeyahay waa in loo sinaadaa habka shaqaalaysiinta tartan hufnaana loo wada maraa laakiin run ahaan wuu sheegayaa dadka maxaan ku dhahdaa dhaqan ahaan ama caada ahaan la takooro ama la haybsoocayo kan dambe markaanu qoray in tixgelin gaara la siiyo haweenka dadka naafada ah dadka traditional marginalized dadka dhaqan ahaan wuxuu waa dhaqan uun dee haybsoocno meeluu diinteenna kaga jiraa ma jirto inama almu'minuuna ikhwa weeye waa loo siman yahay runtii sanadahan dambe un waxaan sheegayaa in dadaal badani ku jiro beelaha laftooda waayo qofku dee maa yuqayiru allahu maa biqowm xataa yuqayiru maa bianfusihim oo dadaal badan baa xaggooda ka jira xaggan lafteeda xukuumadda intii xukuumadda nimanka madaxweynuhu mudane musabiix cabdi joogay kolley dadaal way gelisay iyaduna waxaan xustaa sanadkii hore oo kale tiraan lagu shaqaaleynay gaara madaxweynaha taladiisa lagu shaqaaleeyey waxaa ka mid a inanka imanka jooga agaasimo waaxid ku-xigeenka waaxda sharciga waxa weeye waa dhalinyaradii berigaa la shaqaaleeyey lowgu bartay waana aasaaska hay'adda shaqaalaha waayo dacwad kasta iyo kiis kasta iyo waxaan ugu talagalay xuquuqdu halka bilaamaysaa halkaasa markaa waan u tixgelinay waa ogtihiinoo de waa tii laga dhaafay xitaa musharaxiintii lacagtii yareyd ee ay bixinayeen xilal badan oo kale oo ay dee maanta ka hayaan yaasir baa ka mid ahoo wasaaradda deegaanka waa agaasimaha waaxda HR-ka waxaa ka mid ah agaasimo waaxeedka waaxda maxaan ku dhahdaa telecommunicationka iyo wasaarada kaloo fara badan runtii isbeddel badan baa jira ummadda lafteedana dhexdeeda isbeddel badan baa ka jira oo garwaaqsi ah waayo dee waa in dadku meel ay ku kala soocan yihiin ma jirto resourceska waa loo sameeyey laakiin waxaana mudday soo jirtay oo waa deep rooted weeye dadka dhaqankeenii mudday soo jirtay waxay u baahan tahay runtii in aqoon lagu dabaqo oo dhinacii aqoonta iyo diinta iyo dhan walba laga wada howlgalo islaamnimada iyo walaaltinimada islaamkuna ay xoogaysato ay noqoto waxaynu wax ku binaynayno waayo ilaahay baa la wada hortegayaa dee isagaynu maaragtay berito la hortegayaa mas-uul kasta hadduu takooro wax iyo hadduu kala fogeeyo berito su-aal ilaahay subxana watacaala weydiinaya weeye marka dee xisaabo badan baa isdaba yaallee waxay u baahan tahay waajibaadkeenu waxa weeye inaynu qof waliba kaalintiisa qaato annaguna runtii intan joogo xilkan iyo waa ku dadaalayna madaxweynuna runtii dadka maaragtay maxaan ku dhahaa haweenka dadka maaragtay beelaha gabooyaha naafada oo iyadana loo qeydo tiro gaara sanad kasta wixii naafa ah dhammaantood tixgelin gaara la siiyaa laakiin weli halkii aynu doonaynay ma odhan karayo way gaadhsiisantay xuquuq badan bay leeyihiin dadka kale xuquuqda ula saman yihiin waa inaynu ku dadaalnaa laakiin haddana marka wax kasta mar ma wada dhamaystan roobkaa dee dhibic ka bilaabma oo daruur daadii naguma soo dhacda daweyna laynleydba marka runtii in la dadaalo xaggoodana ay ka dadaalaan oo iyagana runtii waan ku ammaanaya dad badan oo diintii bartay oo maaragtay aqoontii bartay oo aftahanimadooda iyo aqoontooda iyo dhan walba discibliinkooda iyo diintoodaba dhisayiinba ka soo baxay rag iyo dumarba runtii waan ku ammaanaya waayo isbeddelku inuu xagga ka yimaadana waa muhiim dadkuna way garwaaqsanayaan dee beri dhowna waa laga guuraya teknolojiyadda iminka dabada inaga wado wax kala soocan iyo hayba iyo waxaan laga guuri doonaan umalanayaayo dhallinyaraduba dee waa tech driven waa technologyga la halmaalayaa maanta marka raggii hore waxaan maskaxdooda ku jirtay waaba sii socdaan bay marka waxaan rajaynayaa in isbeddel badan ay dhaco insha allahu tacaala bulshadan oo muddooyin badan lagu hayay takoor ayaa qaar ka mid ah jaamacadaha waddanku waxay dowladda uga dhigtay inay si bilaash ah wax uga bartaan waxbarashada yaasir cali faahiye waxa uu ka mid yahay dhallinyarta aqoon-yahanka ah ee ka soo jeeda bulshadaasi sidoo kalena waa agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda deegaanka waxaana weydiiyey sababta ay dhallinyarta isku deegaanka yihiin uga faa'iidaysan waayeen waxbarashada jaamacadaha dalka oo ay dowladdu bilaash uga dhigtay runtii bulshadan ka soo jeedo waa bulshada la takooray oo takoor uu ku dhacay xaqiiqatan 30 sano ee Somaliland jirtay bulshadeedu runtii isbeddel aad u weyn baa ku yimid haddii aanu eegno xagga waxbarashada 2005 waxay jaamacadda Hargeysa siisay 2 qof oo deeq waxbarasho waanu ka faa'iideysan jirnay waxaad moodaa sanadadan ugu dambeeya inay
bulshadaydii ay xaggii jaamacadaha ay fahmeen aqoontii fahmeen haddana waanu ka faa'iidaysanaa waxaa kaloo jira xaddiga soo baxaya dhallinyarta iyo xaddiga deeqaha waxbarasho ee nala siiyo way kala duwan yihiin haddaad eegtay jaamacadda hargeysa waxayna siisaa 2 qof oo scholarship jaamacadda camuud waxayna siisaa number free oo runtii waxbarashaa haddana intaas kuma filna bulshadeedii oo sanad kasta waxaad arkaysaa dhalinyar gaaraysa 15 dhalinyaro oo soo baxaya runtii wasaaradda maaliyadda oo na siin jirta deeq waxbarasho sanadadan ugu dambeeya namaysiinin oo runtii bulshada ay kabi jirtay deeqda waxbarasho waxaan ugu baaqayaa wasaaradda maaliyadda inay na siiso ama noo soo celiso scholarship-ka ay na siin jirtay taasoo bilaabay wasiirkii xukuumaddii hore ee Siiraanyo Maxamuud Xaashi wasiirkii maaliyadda oo runtii na siin jiray tiro gaaraysa 20 iyo wixii ka badan oo deeq waxbarasho intaana bulshadeedu way bislaatay oo waxbarashadaas deeqda waxbarashada siin jirtay wasaaradda maaliyadda wax badan bay ka bedeshay haddana waxaan u baahanahay intaa in ka badan sanad kasta wasaaradda maaliyadda ay noo geliso deeqa waxbarasho sidoo kale ay na siiso dhinacii shaqaalaha maadaama bulshadeedu tahay bulsho aan bulshooyinka kale soo gaadhin waxaan u baahanahay in sanad kasta naloo cayimo deeq waxbarasho oo dal iyo dibadda waxaa jira deeqo waxbarasho dibadda Itoobiya oo kale wadamada Turkiga oo kale iyo wadamo kale jira in kuwa lafteeda nala siiyo deeqaha waxbarasho oonu ka qayb qaadano xagga shaqadoo kale in bulshadeedu maadaama dadkan la aqoon ahayn oo la tayaan ahayn in dowladdu ay xil iska saarto oo ay siiso kooto ama number shaqaalaha si aan u soo gaarno bulshadeeda runtii bulshadeedu hadda dadaal baanu sameynay hadda waxaan u leenahay agaasimo waxeediyaan leenahay waxaan u leenahay aqoon-yahan baan leenahay bulshadii maaha isbedel aad u weyn baa yimid waxaan u leenahay dhalinyar badan oo masterheeda oo runtii ka soo baxay oo wax bartay waxaan u baahanahay in halkaa laga sii jaan qaado oo dhalinyarta u baahan digriga la siiyo dhalinyarta u baahan masteredka la siiyo dee iyo dhalinyarta u baahan dhinaca shaqada inna la siiyo shaqada oo dowladdu ay xil iska saarto xagga iyagu gaab u iman karaa oo tusaale waxaan ku siin karaa inankii marka la yiraahdo inankii markii la takooro oo la yiraahdo qolomaata ama la yiraahdo qoladaas tahay waxaa dhici karta inuu inankii xagga moralitigii aanu bulshada soo dhexgelin xaggii shaqooyinka laga doonanayo inaanu shaqooyinka ka doonan xaggii bulshada ay ku tartamisay inaanu niyadda aan gelin waayo wuxuu aaminsan yahay ummaddan walagaa fuquuq xagga qalbiyana oo ayaa ku dhacay oo runtii maskax ahaan baa lagu heebsoocay marka inankii dhalinyartaa wuxuu sooranayaa haddaad halkaa tagtid kolley lagu siin maayo oo waa lagu fuquuqaya waa lagu tukooraya marka taasaa ku timid in dhalinyartii ay wax badan ay xaq u lahaayeen ay luuskarayaan laakiin hadda dhalinyartii waan wacyigelinay waan dhiirigelinay oo waan garab qabanay runtii dowladda hadda meelo fiican baan kaga jirnaa bulshada meelo fiican baan kaga jirnaa haddana intaasi naguma filna oo waxaan u baahanay intaa in ka badan guuleed khadar maxamed sanadkii ugu dambeeyey waxa uu ka baxay ama ka qalin jabiyey mid ka mid ah jaamacadaha dalka waxa uu faahfaahinaya dhibaatooyinka uu kala kulmay laga soo bilaabo dugsigii hoose ilaa uu ka gaarayay heer jaamacadeed muddadii aan waxbaranayey waxay marka laga soo bilaabo dugsigayga hoose ilaa kii sare mare waxaa dhici jirtay caqabadaha aan la kulmi jirnay mararka qaar inay kugu kalifaan inaad waxbarashada uga hadho caqabado waaweyn way jireen oo aanay ardayda inta kale la kulmi jirin oo aan la kulmi jirnay sida in macalimiinta qaar ku cunsuuradeeyaan darajadaada hoos u dhigaan adoo arday dadaalaya oo raba inaad horumar gaadho inay mararka qaar aflagaadooyin aad kala kulanto macalimiinta iyo maamulka meesha aad wax ka baranayso sidoo kale inaad aflagaado iyo dhaleecayn aad kala kulanto ardayda aad wax la baranayso muddadii aan wax baranayey xaqiiqatan dadaal iyo dhabar adeyg maahaane ma jirin sabab kale oo dee oo
kugu kalifi karaysa inaad waxbarashadaada sii dhammaysato markaad aragto dhibaatada lagugu hayo aflagaadada takoorka alxamdulilah rabbilcaalamiin ugu dambeyn waxbarashadii ilaa heer digri waan gaadhay arday badanoo anigay la mida ayaa jira dhalinyar badanoo anigoo kala ahayd oo markaa iyaguna ka hadhay oo badanna way jiraan marka loo eego intaanu maanta horumarkaanu ka gaadhnay halka waxbarashada iyo dhalinyarada faraha badan eenu kaga baxnay waxa naga badan oo 6 jeer ama 4 jeer naga tiro badan inta ka hadhay ee caqabadahaasi ay ka reebeen caqabado dhaqaale kuwa dhaqan oo kuwii takoorka markaa bulshada reer Somaliland waxay soo jeedin lahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta in badan indhihi baa inoo furmay adduunkana waynu aragnaa waxa ka socda oo isbeddel muuqdaa dhacay dhalinyar badan oo wax baratay way jiraan inta aan waxba baran in laga joojiyo tacadiga takoorka iyo aflagaadada inta kale wax baratay dee ummadaha dhex gashay ee shaqaysanaysana in laga daayo oo laga dhammaado marunba wax kastaa dhammaadaan ma jiro wax cad oo maanta dee la leeyahay waa lagu haystaa beesha gabooye oo la odhan karayo uu muuqdaayo oo wax la taaban karo markaa dhaqankii iyo mala awaalkii hore ee aynu maanta ka dhammaano axmed ibraahim xasan oo ku magac dheer Sanyare waxa uu xirfadda timo jarista ku soo jiray muddo gaadhaysa 12 sano ee ugu dambeeyay waxa uu sheegay in xirfadda timo jarista oo bulshada si gaar u ahayd in iminka lagu qabsaday oo ay jiraan dad ajaaniba oo shaqadaasi ku ciriiriyay business-kan waa business in muddada iyo waqtiga dheer inta leeg aan soo wadnay aan ka shaqeynay inta iyo in ka badan oo aniga iga horeysayba waa business ay ku tiirsanayeen bulshadan minority-ga ka soo jeeda anigu runtii waxa weeyaan caqabadaha kala kulmaa caqabad saa u badan kala kulmay laakiin waxa jirta sida businessyada kale ay haday dawladda noqoto iyo haday hay'ad noqoto loo baritaaro wixii ay u baahan yihiin laga kabo dan intanna sidaas oo kale haday dawlad noqoto iyo haday hay'ad noqotoba in sidaas oo kale loo baritaaro oo loo kabo ayaa muhiim ah maadaama business-kan uu yahay business bulshadan oon dawladdu shaqo tigin oon wasaaraddu shaqo tigin oo aan hay'ad u shaqo tigin ay ku tiirsan yihiin waxa tusaale ay nagu filan meheradahan business-kan barbershop-yada dadka minority-ga haystaan aan ka mid ka ahay waxa weeyaan meherada ugu yartahay waxa jooga 7 inan qaarkood way ka badan yihiinba dan 7da inan nin waliba xaas iyo reer baa ku tiirsan oo uu leeyahay nin walba qoys baa ku tiirsan dhammaantood waa business ay ku tiirsan yihiin bulshadani oon dawlad noo shaqo tigin hay'ada maxalliyan aanu shaqo tigin laakiin iyagu muruqmaal ah oo xoogooda iyo tacabkooda iyo muruqooga cuna caqabadaha ugu badan ee maanta business-kan ka jira waxa weeyaan tiyo dad ajaanibi ay magaaladii soo galeen oo dad ajaanibi business-kii ay ku haystaan oon dawladdu ay arkayso oo aanay weli wax tallaabo oo lagu qanci karo aanay ka qaadin waxa weeyaan business-kan dawladda waxa kaga jeegtay qabaa'il dhan baa kaga jeeday oo maanta hadday ku soo goostaan aanay dawladdu aanay camal loo hayn tiyo dawladdu aanay ilmadii reer jaamacadaha ka soo baxay ay bilaa camal yihiin dadkan oo aqoon ahaan aan aqoon ay ku shaqo tegi karaan aan lahaynoo laakiin muruqmaal ah kuwii kale dawladdu ay u meel la'dahay ay u maara la'dahay ay business iyo shaqo abuur ay u sameyn la'dahay waxa weeyaan hal mid baan farayaa dadka businessyada noocan ah ku hamiyey dadka reer Somaliland ee furanaya waxaan leeyahay business-ka waad furan kartaan dan laakiin intaad nin Ethiopian ama nin ajnabi ah dalka soo gelinaysaan dadka xirfadan yaqaanay xirfadan ehelka u ah ee muwaadiniinta ah ee reer Somaliland ah ee aan shilinkoodu aanu ka baxayn dalka ee ubadkooda iyo ciyaalkooda ku masruufaya ee reerahooda ku masaarifaya shaqada iyaga u dhiiba meheradaha aad u dhiibaysaan dadka ajnabiga dhib kasta waa laga gudbi karaya waxna anaga nagu xiran yihiin waxna mujtamacay ku xiran yihiin waxa mujtamaca ku xiran waxa anaga nagu xiranna waxa laga yaabaa inay kala gedisan yihiin
annaga waxaan ugu xidhan inaan nolol nimaadno sidii waxaan nooga gudbi lahayn inaan dhaqaale abuurno inaan isticdaad samayno inaan waxbarashada ku dadaalno inaan isku tashanno inaan isku tanaasulno inaan isku nimaadno inaan annagu ku dadaalno sidii aan waxaan uga bixi lahayn waayo cid wax ka saaraysaa ma jirto cid ma garanaysaa haddii wax walba waa tacab bay u baahan yihiin dadaal bay u baahan yihiin waxaan u arkaa anigu horena waan u oriyey gobonnimada waxa la yidhaahdo ee soomaalidu tiraahdo gobonnimo anugu arab baan ka aqaana gobonnimada waa laga yaabaa in laygu khilaafsan yahay in laygu raacana waa laga yaabaa waana ra'yigayga aniga daakir ahaan anugu waxaan u aqaanaa gobonnimo inay tahay geed ku baxa dhiigga ragga geed baxa oo ku baxa dhiigga ragga gobonnimo la yidhaahda naf haddaan la hurin gobonnimo lama gaaro maal haddaan hurin gobonnimo lama gaaro anugu waxaan olaha bulshadan ka soo jeedo haddaan doonayno inaan gob noqonno inaan hore u marno waa inaan waxa ugu qaalisan hurnaa oo nafta kow ka tahay maalku ku xigo dadaal ku xigo kadib waa la gaari karaya tusaale waxaa inoogu filan maanta madaxweynaha qarankan jamhuuriyadda muuse biixi cabdi 30 sano ka hor wuxuu ahaa jabhad buu ahaa isagoo ciidamada cirka ka mid ahoo dee taytal wanaagsan haysta ayuu iskaga tegey markuu arkay dhibka iyo ummadda waxa lagu hayo reerkiisa lagu hayo xirkuu gala muddo yar 10 sano kadib gudahood dalkii way qabsadeen maanta waa kaasi waa madaxweynu ka yahay dalka halgankuu soo galay maanta waa ku manashanaadaya ee ma garanaysayay dee ku taxaashaya weeyaan ee fadhiya kursigii maanta ee Soomaaliya u talinaya dee ninka doonaya inuu halgan galaa oo ummadan dhibaatada iyo waxaan ka dulqaada waa inuu dee la yimaado waxay laga dulqaadi karayo oo la sakciya oo awood qalin dhaqaale naf waxba lagu hora isku soo wada duuba oo diinteena suuban ee islaamku maxay ka qabtaa in la faquuqo bulsho islaama oo isku dhaqan iyo sinji tihiin sheekh maxamed cali galle oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka waa kan isagoo ka hadlaya waxa ay diinteenu ka qabto takoorka ama xaqiridda ama liididda aynu ku hayno dad ka mida bulshadeenna waa arrin diinta islaamka ka soo horjeeda waa arrin ka soo horjeeda bini-aadamnimada iyo ummadnimada waa arrin ka soo horjeeda wadajirkeenna ummadnimadeenna iyo qoysnimadeennaba arrin ka soo horjeeda weeye ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay qur-aankiisa in bini-aadmigu uu qaybsamo uun gaal iyo islaam ilaahay baa yihi huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mu'min wallaahu bimaa tacmaluuna basiir ilaahay waxa weeye kaydin abuuray waxaa idinka mida mid gaala waxaa idinka mid mu'minahoo ilaahay rumaysan ilaahayna waxaa qabanaysaan mid arkaya oo xogogaalu aweeye markaa bini-aadmigu labadaas ayuunbuu qaybsamaa mu'miniintuna waxa weeye dad isku mida dad isku xuquuqa waxa keliya ay ku kala sarrayn karaana ay tahay ilaahay cabsidiisa iyo sida ilaahay loogu kala dhow yahay ilaahay baa qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay wuxuu ihi dadow waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig oo asalkeennu aadam iyo xaawa ayuu ka yimi waxaan idinka yeelnay baa ilaahay yidhi shucuub iyo qabiilooyin ayaan idinka dhignay waxaan shucuubta iyo qabiilooyinka idinka dhignayna inaa isku aqoonsataan isku xasuusataan isku xidhiidhisaan oo isku garataan ayaan ilaahay idinka yeelnay baa ilaahay yidhi waxaase idinku karaamada badan ilaahay agtiisa waa ka idinku cabsida badan ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku karaamada badan ilaahay agtiisa ka idinku maamuuska iyo sharafda badan ilaahay agtiisa waa ka idinku cabsida badan ilaahayna wax ka soo qabanaysaan mid markaa arkaya oo la socda weeye markaa ilaahay wuxuu inoo tilmaamay bini-aadmigu inuu halkaa ka wada yimi uu siman yahay wuxuu isdheer yahay aanay jirin bal waxa ay ku kala fadli badnaanayaan ku kala qiimo badnaanayaan ilaahay agtiisa waxa weeye ilaahay cabsidiisa markaa iyo sidaasi meel ay markaa islaamka iyo diinta
ay kaga jirtaa ma jirto ilaahay baa qur-aankiisa weliba ku diiday yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowman min qowmin ilaahay wuxuu yidhi kuwa aliya nebi rumeeyo qoom iyo rag iyo rag ku dheelleelin oo xaqirin oo yaraysanin waxaaba la arkaa kuwa la xaqiraya la yaraysanayaa inay ka khayr badan yihiin oo ilahay agtiisa ay kaga wanaagsan yihiin kadalik saasoo kale dumarna dumar iyo xaqirin oo yaraysanin oo ay ku dheelleelin waxaaba la arkaa kuwaasi ina ay ka khayr badan yihiin ay ku dheelleelayaan waxaa kaloo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi bixasbi imri'in min ashar an yaxqira akhaahu lmuslim waxaa qof dembi ugu filan inuu qofka walaalkii ah ee la midka ah ee muslimka ah ee diinta iyo wax walba ay wadaagaan inuu xaqiraana qofkaa shar iyo dembi ayay ugu filan tahay marka arrintaasi sida aynu sheegnay waa arrin diinteennu aanay ogolayn oo diinteennu marka ay ka soo horjeedo oo diinteennu ay halkaa dhigtay waa arrin runtii dadnimadeenna iyo ummadnimadeenna iyaduna meel ka dhac ku aweeye in dad walaalaheena oo aynu markaa isku mid nahay oo aynu isku magac nahay oo aynu isku afnahay oo aynu isku diin nahay oo wax alliyaaliya wax inoo dhexeeya ama waxaynu ku kala duwan nahay aanay jirin in la takooro oo magacyadooda cayn laga dhigo oo guurkii loo diido oo adoo garanaya inanka aad garanaysay ama inanta aad garanaysana guurkeeda la diido hadduu maanta inoo yimaado mid indhihiisu ay fataatiir u eg yihiin oo adduunyada dabadeeda ka yimina aynu siinayno waxa weeye waa arrin aad iyo laxaad u xun waa arrin aan diinta ku salaysnayn waa arrin aan dhaqan ku salaysnayn waa arrin aan yacni wax la fahmi karo oo ay ku salaysan tahay allahuma inuu shaydaan u ka adeegay oo shaydaan waxa uu markaa buunburinayo oo shaydaan markaa dadu ku adeegsanaya waxa ay samaynayaan mooyaane wax alliyaaliya wax kale ama wax alliyaaliya wax kale aynu cuskinno oo aynu u garanaynaa ma jirto marka waxaan u soo jeedinaya walaaluhu arrintaa inay ka baraarugaan waxaana lagaga bixi karaa waxa weeye waa diinta iyo dhaqankeenna islaamnimada ee ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa inaynu si dhaba aynu u qabsanno iyagana walaalaha waxaan u soo jeedinayaa baryihii hore runtii markii dulmigaa iyo cadaadiskaasi ku dhacay iyaga lafdoodii baa markaa dhulka u dhacay oo markaa waxbarashadii ka tegey oo diintii ka tegey oo shaqadii wanaagsanayduna ka tegey inaanay maantaba sida taagana dhallinyaradooda ay waxbarteen inay dhallinyaradooda waxbaraan inay diinta baraan inay maadiga baraan inay meel kasta oo biniaadmigaasi ka shaqaynayaba inay galaan sida ay maantaba ugu jiraan waxaasina waxaan rajaynayaa muddo yar oo kooban inuu iska suuli doono oo iska bii doono ilaahayna haynaga saaro waxaas oo runtii innagana dhibaato iyo dembi inagu iyagana markaa runtii culays ku ah ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inaga suuliyo dalkeennana uu ka safeeyo